sida lala wada socdo golahan wasiiradii la taliyaha qaarka ah madaxweynuhu waxay muddo doora halkan u joogeen arrintii nabadda ee ka dhacday magaalada Fadhigaab oo dhimasho iyo dhaawacba sababtay colaadna dhexmarisay deegaamada labada halkaad bageesha la yiraahdo Fadhigaab wada degan xalinteedii bay halkan u joogeen arrintaas waxay muddo lagu mashquulsanaa in la soo qabto gacan ku dhiglihii falkii ugu horreeyay geystay oo falkaasina uu sababay in colaadaasi halkaa ka dhacdo xukuumaddu muddadaasba gacantay ku haysay hawshaana waa lagu daba jiray waxaan maanta halkan ka cadaynaynaa in la soo qabtay gacan ku dhiglihii falkii ugu horreeyay geystay beesha uu ka dhasheena maxaan ku raahdaa qaybteeda ka qaadatay waxa falka fuliyay ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee fadhiya magaalada Fadhigaab nabadeynta u fadhiya ayaa falkaas toos u fuliyay allana wuu ku guuleeyay wax khasaare ah oo falka ka dhacayna ma jiro dhaawac kama dhicin dhimasho kama dhicin dhibaato kalena maxaan ku dhahdaa kama dhicin beesha uu ka dhasheena gacan bay ayay ka geysatay oo naga siisay si gaarana waxaan uga mahadnaqaynaa chief caaqilka beesha oo isagu howlgalkaas qayb weyn ka geystay falkaas markaas waa la soo afjaray hawsha inteedii kalena way soconaysaa waana ay gabagaboobaysaa marxaladii u dambeysay kulle gabagabaha imika galaysaa furo ku ahaa in gacan ku dhiglaha la soo qabto cid waliba waxay sheegatuun bay la gola imanaysaa cid walibana waxay garu yeelatuun bay maxaan ku dhahdaayay ayuun bay heli doontaa labada dhinacna waxaan ugu baaqayaa golaha wasiiraduna ugu baaqayaan dawladuna ay ugu baaqaysaa cid walibana inay nabadgelyada adkayso cid walibana ay u soo diyaar garowdo